صدي aan dhagax dhig u helnay inaan furitaankan u helno sida ugu dhaqsaha badan shaqadaas loo qabto waana mahadsantihiin marka mudane wasiir aad baad ugu mahadsantahay maanta inaan nagala soo qayb gashay dhagax dhigan waxaan marka rajaynaynaa in mar walba la xoojiyo dhismooyinka dhaxalgalka ah oo jiilasha imaanaya ay ku shaqaysan doonaan wax badanna ka bedeli doono maanta waxaan meeshaan u joognaa aad baad sidoo kale qaybta miidiyaha waxaan u joognaa maanta dib u dhiska xarunta guddiga olombikada Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa burbur yar uu ku yimid sida xaruntan markii ugu horeysay dawladdu ay ugu deeqday inay guddiga olombikada Soomaaliyeed hawlahooda administrationka ama maamulka ay ku qabsadaan oo markii ugu horeysay la dhisidii ugu horeysay 2013 sidaad u aragtaan qaraxyadii ka dhacay ayaa xoogaa u geystay dhibaato yar marka hadda dib dambe loo dhiso oo loo hagaajiyo si ay guddiga olombikada ay u qabsadaan hawlahooda muhiimka marka mudane wasiir aad baad ugu mahadsantahay maanta inaan nagala soo qayb gashay dhagax dhigan waxaan isleenahay meeshaan waxay noqonaysaa haddii sida loogu talagalay aan rajaynayna inay u dhisanto xaruntii ay ku shaqayn lahaayeen guddiga olombikada Soomaaliyeed hawlahooda muhiimka ay ku samaysan lahaayeen dhiskeedan iyo hagaajinteedan waxaa qayb nagala qaataan u mahadcelinaynaa guddiga olombikada Afrika iyo guddiga olombikada adduunka iyo sidoo kale guddiga olombikada Soomaaliyeed oo contribution u geystay waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo maanta aan balaqaad ka rabnaa wasiirkuna qaybaha kale oo ka dhiman inay ayaguna dawladdu ay ku dari doonto marka wasiir ku soo dhawaad waa mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga olombikada Soomaaliyeed marka hore waa salaamayaa gudoomiyaha guddiga olombikada gudoomiye ku-xigeenka xogayaha gudoomiyaha degmada Shigaani waa raala gudoomiye degmada Retail marka waa salaamayaa gudoomiyaha Shigaani oo salaamaya waa mahadsantiin dhammaan bahda saxaafadda ka soo qaybgalayaasha waxaan marka hore rabaa inaan maanta aan si gaar ah uga mahadceliyo cid kasta oo gacan weyn ka geysatay haday dadaal iyo taageero dhinac walba leh horumarinta dhanka sportska waxyaabaha ugu muhiimsan oo bini'aadamka lagu horumariyo waa in laga horumariyaa infrastructure-ka marka dawladda Soomaaliyana maadaama ay dhulkan ku deeqday cid kasta oo dhisidan iyo dhaqaalaha iyo aqoonta ku bixisayba in la helo garoon iyo xarumo oo sports loogu adeego oo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa waxaan sidoo kale aan u mahadcelinaynaa xiriirka kubadda cagta xiriirka olombikada dhammaan xiriirada dalka ka jira sida ay uga qayb qaadanayaan horumarka sportska dalka waxay ka mid tahay waxyaabaha oo la taaban karo ee sportska lagu horumarin karo inay helaan xafiisyo garooman meelo lagu shaqeeyo marka wasaaradda ahaan waxaan taageeraynaa wax walba horumar ah horumaradan waa kala wanaagsan yihiin horumarkan oo kale oo ah horumar infrastructure ah oo dhismo la taaban kara oo aan ahayn munaasabad ama ciyaaro la ciyaaray waa dhaxal ay dhaxli doonaan jiilka naga dambeeya haday yihiin kuwa hadda nool iyo kuwa hadda dib u dhalan doonaba waxaan marka rajaynaynaa in mar walba la xoojiyo dhismooyinka dhaxalgalka ah oo jiilasha imaanaya ay ku shaqaysan doonaan wax badanna ka bedeli doono horumarada arrimaha oo administrationka ciyaaraha olombikada marka cid walba oo gacan ka geystay mar labaad mar saddexaad waa u mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa in ay aan furi doono intaan xilka hayno meeshaan oo shaqaynaysa waxaan ka rajaynayaa guddiga olombikada inay dardar geliyaan fursadii aan dhagax dhig u helnay inaan furitaankan u helno sida ugu dhaqsaha badan shaqadaas loo qabto waana mahadsantihiin